galayaan anigu saacad baan la yahay ha loo sheego wallahi thumma wallahi wa billahi thumma billah wa tallahi thumma tallah ilmahaygu waa 22 caruura hadday ilaahay baan ku dhaartay caawa dhimanayaan oo la yiraahdo way dhimanayaan ee shaqadaaysa jooji ilaahay baan ku dhaaranay inaanan joojinin mana ka sulay cimrigayga inta ka dhiman inaan dadka masaakiinta ugu gargaaro aayaadka ilaahay ma ihi fulay cararaya ma ihi geeridana nabi maxamed baa dhintay sallallahu alayhi wa sallam nabiga la caayay alayhi salatu wa salam lagu tilmaamay inuu yahay saaxir lagu tilmaamay inuu yahay maartay kaahin dadin sheegan inay ugu tilmaamaan wixii nabiga lagu tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam maartay kufaarul makka ama maartay mushrikiinta makka joogay waxay nabiga ku tilmaameen in maanta nin wadaad oo diin sheeganayo kitaaba aqrinaya uu yiraahdo maxaan ku yiraahdaa ii sheeg ninka hal la dilo waa sixroole bal iska daaya uu jeclaysto gaala inuu intuu tago yiraahdo ninkani waa terrorist weeyaan wiilkiisana xamar buu isku qarxiyey haddana bakambaalu qarxinaya ninkii yiri ilaahay baan ku dhaartay sujuud buu leeyahay gar buu leeyahay kitaab buu akhriyaa saddex nin baa ku qoran warqada saddexda ninba diin bay sheeganayaan subxaanallah oo maxay rabaan cabdixaq goormay barteen goorma warkiisa soo gaaray ma yaqaanaan maxay ka rabaan waxaa dhibay sheekh waxaan rabaa inaan ku tuso muuqaal yar boosaaso magaalada dadka guriga aan dadka ku quraan saarayay meesha waa xarunta ilaajka ee boosaaso reer boosaaso way wada garanayaan halkani waa guri cilaaja wuxuu ku yaalaa xaafadda alraxma ma aha kii rafiya raaxo ku yaalay si fiican u fiiri indhahaagana fur waa daaqadii guriga weeyaan kaas waxaa ku yaala 2 xabadood kaasi waa derbiga xabad baa ku taalla halkaana waa 2 xabadood oo kale ilaa 3 xabadood baa ku taalla waa xaafadda alraxma reer alraxma kulley way maqlayaan gurigana way garanayaan halkaasi waa derbigiisii wuxuu shabaha kii kale ku yaalay rafiya raaxo ma arkaysa hal xabaa ku taalla isagana wallaahi waa dhowr xabo ku soco waa kuwaa rasaastii wuxuu eegyahay guriga rafiya raaxo mana islaha kaasaa ka rasaas badnaa waxaa jiray walaalayaal video kale oo isla magaalada boosaaso kaasoo ahaa weerarkii ugu horreeyay ay soo qaadaan niman kale ah waa sixroole maaragtay hal la dilo niman kale ah weerarkii ugu horreeyay soo qaadeen wuxuu ka dhacay xaafadda ridwaan waxaa reer boosaaso dee si fiican bay qadka ugu jiraan xaafadda ridwaan buu ka dhacay isagana insha allahu tacaala waa raadin doonaa waana soo heli doonaa habeen 8 saac maaragtay ayay iyadana ahayd habeenka iyada ah ilaahay subxaanahu watacaala guryihiisa markaad guri ilaahay ku makansiiyo ama aad degto inaad xijaabto qur-aan ku akhrisan kugula talinaya guriga qur-aan baan ku akhriyey nimankaa waxay isku dayeen inay derbiga ka soo dhacaan xarig bay soo riteen taayar weyn bay ila ka dhigteen way awoodi waayeen nimankaa inay gudaha soo galaan maxaa yeelay alxafiid huwa allah وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد قرآنك إلهي كل شيء سبحانه وتعالى أود ويوي لوا ين يسوع قران ورمحال لا يقربا وردديه ورت فكر نبي محمد محال قرب صلى الله عليه وسلم محال لقوه النبي صلى الله عليه وسلم دad kan maxaa ku kalifay inay dad muslim qof muslim diinta dhiigisa banaystaan inay ilmihiisa dhiigooda banaystaan inay aniga dhiigayga banaystaan maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay xiqdi iyo xumaan qalbiga ka gashay ayaa gaarsiisay heerka inay lacag ku bixiyaan in aniga la idilo billahi alaykum su'aal isweydii waxaan u bareeray inaan dadka muslimiinta ka hor istaago cadowga jinniga ah ee ilaahay ka fogaaday kiisa yahuudka iyo kiisa maaragtay nasraaniga inaan maaragtay ummadda uga gargaaro sixroolaha inaan ummadda uga gargaaro ma mudanahay maanta in lay dilo ma mudanahay in lay dulmiyo mise waxaan mudanahay in lay tabantaabo weli ma aragtay wadaad soomaaliyeed oo usoo banbaxay ummadda sidaan ugu shaqeeyo in ugu shaqeeyo ma kufaanayo maxaa adiga hurdada kaa toosiyey markuu cabdilxaq ummadda anfacay uu istaagay maxaad ugu waanatay dumarkuu taataabanayaa waa sixroole jinniyuu ku shaqaysta awal xaggee jiri jirtay ha maanaa igu soo baraarugtay ya migu soo baraarugtay
hadda soo kacday miya hadda adoo soo kacay ummadda wax u qabo carab dadka intaad meel u furto ummadda ilaahay qur-aanka saar hawshaan qabanaya qabo haddaad la timaado inaad ummadda anfacdo waa kuu banaynaya anaa kuu banaynaya meeshaan ku shaqeeyaan ku siinayaa ummaddana markhaati baan kaaga dhigayna ummaddu shaqada u qabanaysa shaqada la wareegta adiga laakiin adigana dhimo ummaddana waxba uma qabanayo intaan dhimanayaan sugaya wallahi uma wallah waa ku anfacayaa hooyo waxaan anfacayaa walaashayda taan dhalayna waan anfacayaa gabar kastoo soomaaliyeed iyo hooyo walboo soomaaliyeedna waa walaashay weeyaan hooyadana waa hooyaday wiilka xanuunsanna waa wiilkayga weeyaan odayga waayeelkana waa aabbahay iyagaasaan u taagnaanayaa habeen iyo maalin aan kusii wada dhibaatadii ka dhacday boosaaso habeenka isaga walaalayaal qof walba markhaati buu ka yahay ridwaan 40 daqiiqo saacadan fiirinayay qolkii aan ku jirnay wuxuu noqday naar dhimbila ah waxaa gubtay daahiyadii alaabtii armaajada qolka jiifka taalay way soo dhacday aniga xaaskayga gobashaan ku jiifnina waxaa kala gooyay rasaas baa kala goysay bal walaalayaal waxaanu niyeysanay habeenka inaan aakhiro aadayno laakiin ilaahay ma oran subxaanahu wa tacaala afar jir aan dhalay baa gacanta xabad looga dhuftay ilmahayga markaan u danqaday waxba habeenka amaan haysan awlaadayda markaan u danqaday waxaan go-aansaday inay nimankaa idilaan bal ilaahay subxaanahu wa tacaala ka u horreeyaan ku nafbaxo albaabkii baan ka soo baxay anoo ilaahay maaragtay weyneynaya ashahaadanaya ilaahay wuxuu gacanta ii geliyay kii ugu horreeyay in la ka taagna ayaan qabtay markiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala rucbiiba ku riday